First maxaa dunida ugu jeceshahay? dunida quraha u jecel Waa si wanaagsan. Dunida maxaad dusheeda u joogtaa? waxay dunida sheegay ilaahay caabintu waayeen Ilaahay muxuu kuu abuurtay adiga? ilaahay wuxuu abuurtay caabido Inaad caawito. Dunida kolkaad wax u joogtaan Ilaahay inaad caawito miyaa? Okay, hadafkaaga waxaad higsanaysaa ugu weyn muxuu yahay? ilaahay waxaan hiisinaya waxaan weeye filmaantii aan sii wadi jiray inaan sii wado baan heer ka gaaro. Okay, ma xumo. Filmaanta aad jishay wax yar ma naga faalan karaysaa? ma jirin laakiin filmaan badan waan ka qayb qaatay weeye. Okay, filmaanta ka qayb qaadatay sida filim hadda ka hor aan maqlay bal noo yarta taabo. filimkee weeye marka filim ku taabta sida filimka maxaa la qaxar meel la ii sheeg qalbi qalbi walaaye mutaliyo jiru mutaliyo yeah filimka waxa ka qayb qaatay ogtay filmaanta horta marka waa erayo waxa soo qoro waa murti haye waa murti qof ka soo maxata waan karta marka filimka waxa keenay anaga iyo ninka fashala dhaw waan karta marka rag qore baa kamid ah laakiin magacayga lagu soo dirno waa xaqayga lagu soo dhexsanaya. Okay, sababtu maxay tahay magacaaga looga reebay adigoo director ka dhanaa filimka ah? nin hindiya ma Soomaaliya sayay marka Soomaalidu sayay wax ka cusuriin. Okay, Soomaaliya Hindiya xuduud bileeyeen maxad ka leedahay maxaa ahaynta maxaa keen? dadka isku dhawaadeen isku waan karta hawsa hadda maxad leedahay maxaad ka dhiibanaysaa kana fikir ama ra'yi? nin filmaan badan oo sida qalbi walaaye mahabbatay filmaan badan soo qayb qaatay baa jira. waan karta marka waxaan wadaa talo Soomaaliya soo wada oo aan filmaanta u dhiibi doono. Okay, adiga dadka Soomaalida maxaad ku baraarujinaysaa inay saadoo kale director noqdaan inay actor noqdaan maxaad leedahay fikirkaaga? ma sida director noqon oo shaqada u yaranaysa. Okay, adiga maadaama jeceshay inaad director tahay maxaad waxaad jeceshay walaalka wala jeclaan lahaa? ma waalida shaqada ku xanaaqsan soo qanto ay dadku la wanaagsan deeyan shaqooyinka kala raadsadaan. waan karta marka iyaga filmaanta matalan leeyahay anna directorkaas waxaan soo filmaanta soo hagaajinay isku soo bariday marka toorun baa loo baayay. waan karta marka toorun baa wax loo baahnaa laba baa loo baayay laba qof inaan yeelan. waan karta adiga hadda maxaa dadka fikir oo u reebaysaa dadka sidaadoo kale inta badan ku xiiseeya hadalkaaga haya meelo badan waxaan maqlay anoo mariya hadallada laga hayo maxaa leedahay dadka maxaad ku dhaafisaa? dadka jecel iyo cabsan waxaa leeyahay dinna aad iyo aad u cabsanaada haye ilaa intaan ka dhiman iyo cabsanaada haye hadda laakiin filim xiga weyda yahay nicina. Okay, marka adiga leedahay cabsanaada ma sharaab baa tahay maxaa tahay cabsanaada macnaha ma fahmiyo aniga waxay ugu hadlayaan waxay ugu hadlayaan kalgacal jecel bay ku hadlayaan aniga waxa leedahay cabsanaada marka macnaha ba noo yar fasir mudan adoo raala nordinidu waa saxaafada xafnaa ereyada waxa ka baaraya maadaama aadna masuula tahay annagana aan ka soconno saxaafadda inaan wixii important ka hadalno oo waa mid meesha ku jirta waa must. If you understand please excuse me or if you understand it's not mystical so what am I talk for you sorry talk what you talk. Thanks horta marka la cabsanaanta meel Soomaalida cabsanaanta waxa yaqaan qof marka qof la jecel dadku jecelaadaan ay cabsanaanta u yaqaanaan. Okay, waxaan soo wadaa kuma sheegin waxaan maqlay in wuxuu soo wadaa filim waan maqlay waxaan ka arkay Facebook YouTube meelaha baan ka arkay bal noo yarta taago filimkaas waxa dhacay jacayl lacag waa filimkaas jacayl lacag filimka hadda ka hor baa la keenay adiga ma koob baad ka gacisay mise waqtiga qaybtaada mise qaybta wax walba nin wade wax baa laga soo meel baa laga keenay ama meel ka soo maxtaa filimka jacayl lacag waqtiga u dhacay qisadaas marka aan iska sameeyay marka waa asaas jacayl lacag kala doona lagu. Okay, maxaa kamid ah filimkaas oo bal naga taaban karaysaa? nin waqti wadooda bariid aan marin lacag la siinay dhowr milyan. Okay, dhowr milyan iyo baa laga kala dooro. adiga filim baad joogtaa waxaad rabtaa inaad filim sameyso aad ku soo laabato maadaama ciyaaraha ka fariistan ciyaaraha ku soo laabato filimkaaga ugu horeeya waxaad ku sameynaysaa haddii aad filimkaaga ugu horeeya waxaan ku sameeyay filim joogo ayaan ku sameynaya maadaama aad filim joogto sama wacnaan inaad wadan kale oo joogin saad interesting mise u qaadato direction aad u qaadato aad u soo jeesto sama wacnaan leh wallahi hadii horta meelan filim ku sameeyay wax wanaagsan meesha ugu caan filmaanta lagu matali karo filim wadan بريفليا وطن عادي ومعان
dad Soomaaliya Portuguese ku nool way soo dalbanayeen laakiin ma Finland iyo wadankaas aan rajeynayna imika filmaanta ku sameystro. Okay, fikirkaaga ra'yigaaga ma xumo waa la qaadan karayaa. Hadda saxaafadda maxaad ku dhaafisaa adigoo raalli oo khalad noo fahmin? saxaafadda waxaan ku leeyahay su'aalaha niyo adag ee dadka weydiinaysan in kala daayin baa leeyahay. Saxaafadda waa shaqadooda inay su'aalo adag dadka weydiiyaan. Waa aytay shaqada kaliya haysta ma inta hadii su'aal adag weydiin weeyaan waxba uma kala soconayo mas'adee process-ku waa adkaanaya. والله تا صحفة عادي أدمر السلام يرجع حق السلام يعني كمرمان وين وانقرت وأنا حاشر أنا نيو سلاح دي وجوه يعني كذا حسنا مريك وجوه يعني كاسي وأنا كان ممكن رتشيني ما دون كاسة صوت وحاول بس كه رجال نيم جلسة من خلا سلام الله سلام ضرور كيا استوى رتشيني ما ضو أوكي ضرور كاي ترشيد فيلك ضرور كاي محط كل حافظ ترشيد فيلك سجل أيضا رتشيني يسوق قالوا مسموع عن بديه marka dadkaas oo dhan codsiga waan maqlay inaa gabadh sagal leeyahay fiinka la soo jirayso laakiin ninka daroolka ku ah adiga maxad ka leedahay maxaad isku dhaafaysaa ninka daroolka ku ah horta in sababka ugu soo jeestay baniyo waxa uu xunyo fiinka sidaas la u dhibtid laakiin uu isqoon weeyay sax oo wadi waa waxyaalo badan soo hagaag waayay marka waxaan rajeynayaa inaan imika anaga iyo inta sagal oo fiinka soo jilo sagal guur insha Allah soo gaar doonta. Okay wasaxaafadda ayaa waxay ku leedahay si kale lama ku salaaminaa sida wacan ee noola hadashay iyo sida wanaagsan waqtigaaga muhiimka ah waqtigaaga qaali ah noo siisay haddana waxaan ku leedahay thanks mahadsan inka mahadsan aad iyo mahadsan soo